ku soo dhawow xogo laga yaabo in aadan hore u maqal. mataanaha ayaa hadda dhasha in ka badan waqtiyadii hore. waxaa la sheegaa in dadku ay hadda isguursadaan waqtiyo dambe, mar walba oo aad dib isku dhigtidna waxay kordhinaysaa jaaniska aad ku dhali kartid mataano. noolayaasha kugu dul nool ama gudaha jirkaaga ku nool waxay ka tira badan yihiin dhammaan dadka dunida ku nool. culayska qofka bakteeriyadu waxay ka tahay 1 ilaa 4 kilogram. saynis yahanadu waxay aaminsan yihiin in Leonardo da Vinci uu adeegsan jiray labadiisa gacmood isku mar, isagoo midna wax ku qori jiray midda kalena wax ku sawiri jiray. celcelis ahaan qofka bini'aadamka ah noloshiisa oo dhan jirkiisa inta dhimatay waxay culays ahaan u dhigantaa 20 kilogram. bil walba maqaarka qofka bini'aadamka ah wuu is-cusboonaysiiyaa. waxaa jira qol ku yaala xarunta ugu weyn ee shirkadda Microsoft, qolkaas oo haysta rikoorka qolka ugu sharqanta yar dunida. qolkaas haddii aad gudihiisa ku jirtid waxaad maqlaysaa garaaca wadnahaaga. traffic jamkii ugu dheeraa dunida wuxuu ka dhacay caasimadda China ee Beijing bishii 8aad 2010, wuxuuna socday 10 maalmood. dhererka traffickaasna wuxuu ahaa 100 kilomitir. haddii quraanjada dunida ku nool oo dhan meel la iskugu geeyo, culayskeedu wuxuu la ekaanayaa culayska dadka dunida ku nool oo dhan. dhammaan digaaga dunida ku nool oo dhan waxay 2 jeer ka tira badan yihiin dhammaan dadka dunida ku nool. waxay tiradoodu gaaraysaa ku dhawaad 18 bilyan. ma ogtahay in kalarka basaliga uusan ku jirin calamada dunida markii laga reebo labadan wadan oo kala ah Dominica iyo Nicaragua? haddii aad noloshaada mar un tagtay meel baraf ka da'ayo, waxaad ka mid tahay dadka nasiibka u helay, maadaama 3 meelood oo 2 meel dadka dunida aysan arag baraf noloshooda. ha isku celin hindhisada, maxaa yeelay waxay saameyn kartaa maskaxdaada waxayna kalifi kartaa dhaawac. waxaa jirta tuulo ku taala dalka Honduras taas oo sanad walba markii la gaaro xilli roobaadka uu ku da'o roob wata kalluun. saynis yahanadu ilaa hadda wax fikrad ah kama haystaan arrintan. Sweden waa dalka leh jasiiradaha ugu badan ee dunida. waxaa ku yaala 221,800 oo jasiiradood, waxaana lagu nool yahay oo kaliya 1000 jasiiradood. kalluunka loo yaqaano jellyfish haddii la dhigo meel qorax ah wuu dhalaalayaa maadaama uu ka kooban yahay 95% biyo. labadan gabdhood oo lagu magacaabo Amy iyo Kitty waa 2 gabdhood oo mataano ah. waxay dhasheen 2012, waxaana u dhaxaysay dhalashadooda 87 maalmood. waxay haystaan rikoorka mataanaha ugu waqtiga kala dheer. xayawaanka loo yaqaano panda waxaa iska leh dalka China. haddii aad ku aragtid isagoo jooga dal kale, ogow waa marti. ma jiro dal kale oo sheegan kara lahaanshaha xayawaankan. waa inoo qaybta labaad.